السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا نجنال كمركل السود وهذا أدي هذا وما تسنتهين ما أنت جمعة ونكسنا يعني دلله هاي وأنا لبي لباتنك بيش السديدات أغسطس سنة كلبدا كون يشان يلا باتنك مقال كان وحربا إن ندخل وذاقو قضب الدورة هو كم تهاي هاي الصوماليات أو قبل كان نيويورك لوجو حري دنبي أو جيستي ويل كذا أو كوب يتبنجره أرنتاس السديو لحظي وندله وذاقية qofkii ugu dambeeyay shantii qof ee Soomaalida ahayd ee ku eedeysnayd kiiskii lacagtii $120,000 ahayd ee bishii lixaad ee sanadkii hore horaantoodii la isku dayay mid ka mid ah xeerbeegtida kiis 7 qof oo Soomaaliya loo haystay dhageysanayay isla markaana kiiskii uu xeerbeegtida gacanta ugu jiray isugu dayay inay ilaalushaan ayaa shantaasi qofkii ugu dambeeyay oo ah Saciid Faarax maalnimadii shalay ahayd oo dambigiisa qirtay xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota oo taageeradii ay siiyeen senator Umar Faatix dhamaadkii bishii hore ee July kala laabtay kadib markii ninka la tartamaya ee Jacob Frey uu cabasho ka gudbiyay qaabka ay codeyntaasi u dhacday maxaa lagu ganaaxay xisbiga arintaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya dhinaca gobolka California maadaama Texas ay arbacadii ay meel mariyeen sharcigoodii ay doonayeen degmooyinka in dib u qaabayn loogu sameeyo oo 5 xubnood oo dimuqraadiya laga soo doorto hadda Republican laga soo doorto ayaa gobolka California shalay tilaabo lamida baarlamaankeeda uu qaaday gudoomiyaha gobolka Gavin Newsom waa uu saxeexay arintaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada magaalada Utica ee bartamaha gobolka New York ayaa waxa ay sheegeen in hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Nuurta Maxamed oo 36 jir ah la xiray kadib markii ay ku guul dareysatay inay xakamayso wiilkeeda oo 11 jir ah waalidiinta Soomaaliyeed arrintan si wanaagsan u dhageysta dhamaantiinba waa idin qusaysa ilmahaadu dambi ay galeen ayaa adiga lagu xiri karaa hadii ilmahaada talaabo aad ka qaadi wayso hadii aad gacanta ka taagtana waa inaad booliska ku wargelisaa oo tiraahdaa war anigu canugan war waa iga maqli waayay ogaada markaas kadib iyaga ayaa wadaya meelaha caruurta aan qaan gaarin lagu xiray ee juvenile-ka ay geynayaan halkaasi ayaan wax lagu baraya oo lagu haynaya marka hooyadan waxyaabaha lagu soo eedeeyay waxa kamid ah inay qatar gelisay nolosha ilmahaasi iyo waliba inay ku guul dareysatay inay ilmahaasi xakamayso booliska Utica waxa ay sheegeen in ay arintan dacwadan ay ku soo ogeen hooyadan ay tahay tilaabada ugu dambeysay oo ay qaadi lahaayeen sababta ay ku timidna waan idin la wadaagaya wiilkeeda oo 11 jir ah wiilkan magaciisana waa la qariyay sawirkiisana waa la qariyay maadaama uu san qaangaar ahayn oo uu yahay ilmo yar marka waxa uu sameeyay dambiye fara badan ayuu sameeyay hooyadana waxa loo sheegay in ay wax ka qabato laakiin waxba waa ay ka qaban waysay sida ay booliska Utica ay sheegeen hooyadana waxa la xiray maalnimadii talaadada ee la soo dhaafay boolisku waxa ay sheegeen in wiilkan ay dhashay hooyadan lagu magacaabo Nuurto oo ku lug lahaa ugu yaraan 4 dambi oo waaweyn oo waliba felony ah oo ay ku jiraan in uu dhac geystay oo guri u dhacay iyo sidoo kalena dambiye kale oo iyagu yaryar ilaa iyo intii sanadkan uu socday hadda 2025 intaasi waxa wehliyay oo boolisku ay sheegeen wiilkan inuu dambiga la geysanayay wiil kale oo saaxiibkii ah oo 12 jir ah waxa ay geysteen hadda bishan aynu ku jirno dhac inay guri u dhaceen waxyaabaha ay ka qaateen lama sheegin iyo sidoo kalena in ay waxyeello u geysteen dhowr gaari intii arintaasi ay jirtay waxa ay sidoo kale ay dhaceen ilaa iyo 2 gaari ayay qaateen oo ay xadeen waxayna ku kaxeeyeen magaalada iyagoo sababay ilmo yar baabuur ma wadi karaan ama guri ayay ku dhufanayaan ama gaari kale ayay ku dhufanayaan marka waxyeello kale ayay geysteen oo gawaari kale iyo waliba hanti kale ay u geysteen markastana hooyo Nuuro waa loo sheegayay wiilkeeda arrimaha dabeecadahan uu sameynayo waxaana xitaa ay boolisku ay u bandhigeen adeegyo inay caawinaad siin karaan laakiin waa ay ku guul dareysatay inay wiilkeeda xakamayso sida boolisku ay sheegeen markaas kadib boolisku waxay la tashteen xafiiska xeer ilaalinta waxaana go'aan lagu gaaray in dacwad aan inta badan aan la isticmaalin oo aan waalid lagu qaado hooyadan maadaama shacabka dhibaatada ka soo yeeraysa ay aad u fara badan tahay oo shacabku ay wiilashan da'da yar oo gawaarida xadayo guryaha u dhacaya ay ka soo sheegteen sharciga gobolka New York marka la eego qofka waalidka ah amaba mas'uul ka ah ilmo si sharci ah mas'uul uga ah ilmahaasina ay iyagu hayaan waalidii waxa jira ilmo korsada Soomaaliya marka haddii ilmahaasi da'diisu ay 18 sano ka yar tahay oo adigu korsanayso amaba aad dhashay mas'uulna ka tahay
adiga ayaa lagu soo xiri karaa haddii ilmahaas la arko in noloshoodu ay khatar gashay islamarkaana la dayacay amaba sidoo kalena ay ilmahaasi yihiin kuwo dembiye ku lug leh amaba dhibaato loo geystay haddii lagugu helo adiga ayaa lagu soo xiraya hadda hooyadan waa la xiray talaadadii laakiin waa la soo daayey maadaama aqoonsigeeda ayaana lagu soo daayey hadda haddii dembigaasi lagu helo 1 sano oo xabsi ayay mutaysan kartaa amaba 3 sano oo probation oo dhaqdhaqaaqeeda lala soconayo marka waalidiinta Soomaaliyeed ilmahaada iyagoo da'yar haddii habeenkii ay iska maqan yihiin ama markii iskuulkii galabta ay ka imaadaan intay iska baxaan ilaa habeenkii ay iska maqan yihiin haddii aysan warkaa maqlaynin waa inaad booliska u sheegtaa oo tiraahdaa war ilmahan war waa iga maqli waayey waxaan u malaynayaa inuu dembi geysanayay marka hal layla ogaado markaas kadib boolisku iyagaa kaa wadaya meel geynaya caruurta lagu hayo oo juvenileka da'da yar oo qaan gaarin markaas kadibna iyaga ayaa halkaasi ku haynayo waxna lagu barayo marka laakiin haddii aad boolisku baaqidii ay kuu soo jeedinayeen aad iska dhagatirto arrintaasi adiga in lagu xiri karo xabsi aad u geli karto ogow ilmahaada yar oo aad xakameyn waysay dembi ay geysteen arrintaasi hooyada Soomaaliyeed haddii intaasi aan kaga gudbo sidoo kale waxaa jirtay in 5 qof oo Soomaali ah loo haystay kiiskii laaluushka oo dhacay horaantii bishii June sanadkii 2024 waxaan ogeyn in bishii Abriil sanadkii 2024 ay bilaabatay dacwad 7 qof oo Soomaaliya loo haysto kiiskii Feeding Our Future oo lacag 47 milyan ah inay luusadeen lacagtii cuntadii loogu talagalay caruurta in la siiyo xilligii coronavirus markii dacwadaasi ay soo gabagabowday oo kiiskii gacanta loo geliyay xeerbeegtida waa tii la ogaaday 2 bishii June markii ay xeerbeegtida kiiska gacanta loo gelinayay in dacwadogayaashu ay yiraahdeen waxaan helnay in la isku dayay in mid kamid ah xeerbeegtida la laaluusho arrintaasi kadib garsooruhu waa kii joojiyay Nancy Brassel waa tii joojisay FBI-dana ku tiri telefoonada laga qaado hana la xiro 7 qof ee eedeysanayaasha markii la xiray kadib waxaa la ogaaday in gabar la yiraahdo Ladan Maxamed oo Seattle ka timid ay kireysteen amaba lacag ay siiyeen una ballan qaadeen qaar kamid ah dadka eedeysanayaasha ee dacwadu ay ku socotay marka xeerbeegtida nambarkiisu ahaa 52 ayaa la ilaaleystay gurigeeda adreeskeeda gaarigeeda la dabagalay oo waliba Ladan iyo wiil kale oo la dhashay 2 kamid ah dadka eedeysanayaasha oo Cabdiqaadir la yiraahdo Faarax ayaana arrintaasi ku lug lahaa markaas kadib Cabdicasiis Faarax oo hadda 6 bishan 28 sano xabsiga lagu xukumay iyo walaalkii Saciid Faarax ayaa ganacsi uu Saciid Faarax leeyahay lacag 200 kun ah ay soo aruuriyeen waliba xawaalad ku taala koonfurta Minneapolis lacagahaasi qaar laga soo qaaday markaas kadib lacagtaasi waxaa loo dhiibay Saciid Faarax iyo Cabdicasiis Faarax iyo Cabdiqaadir Faarax saddexdaasiba waa isla dhasheen Cabdiqaadir ayaa loo dhiibay lacagtaasi waxa uu geeyay Ladan meel baakin looda oo Bloomington ku taala labadooda ayaa israacay gurigii xeerbeegtida ay tageen albaabka ayaa la garaacay xilligaasi waa ay ka maqneed lacagtii ayaa qof ehelkiisa loo dhiibay waxaana la yiri haddii xeerbeegtidan marka ay kiiska go'aan ka gaarayaan ay tiraadaan dadkaasi dambi ma lahan ay tiraado maadaama hal qof haddii uu yiraahdo ay dambi la'aan noqonayaan lacagtan ka badan ayaa lagu siinaya sidaas darteed xeerbeegtida isla markii ay guriga timidba booliska ay soo wacday iyo FBI-da lacagtiina waa tii la qaaday markaas kadib ayaa la xiray 5 qof oo 3 kamid ah isla dhasheen iyo Cabdimajiid Nuur oo isagu kamid ahaa dadka soo ilaaliyay social media xeerbeegtidaasi xogteeda soo helay marka 4tii hore dambigooda ayay hore u qorteen Cabdicasiis waa uu qirtay Cabdimajiid waa uu qirtay Cabdiqaadirna waa uu qirtay Ladan September ayay qaratay marka waxa ugu dambeeyay hadda oo shalay qirtay Saciid Faarax oo 43 jira waxana uu sheegay in isaga iyo walaalkii Cabdicasiis ay lacagtaasi soo ururiyeen isla markaana ay goobtaasi isugu keeneen qorshahaasina ay isla ogaayeen marka hadda Cabdicasiis arrintii Feeding Our Future dambiyadii lagu helay ayaa lagu xukumay kiiskan laaluushka waa uu u dhiman yahay marka hadda Saciid ayaa ugu dambeeyay 5tii qof oo dambigooda qirtay isla markaana xukunkooda wali waa uu dhiman yahay oo dhammaantoodba kiiskan laaluushka laguma xukumin ilaa iyo sanadkii 2022 dacwadogaasha federaalka 73 qof ayay dacwad ku soo ogeen oo kiiskan Feeding Our Future loo haysto marka waxaana ugu dambeysay hadda kiiskan laaluushka Saciid Faarax ayaa ugu dambeeyay oo ugu dambeyntii dambigiisa qirtay arrintaasina halkaasi haddaan ka gudbo dhinaca magaalada Minneapolis waxaan ognahay maayarka magaaladaasi 5 xubnood inay ku tartamayeen waxaana ugu cadcada senator Umar Faatix oo sanadka baarlamaanka gobolka Minnesota ku jira iyo waliba maayar Jacob Frey oo markii saddexaad doonaya in la doorto
xisbiga dimuqraadiga 19 bishii July soo dhaafay waxa ay shirkoodii guud isugu yimaadeen magaalada Minneapolis gaar ahaan Target Center waxaana ay taageereen oo maayarka magaalada Minneapolis inuu noqdo ay u taageereen Senator Umar Fatih marka arintaasi markii ay dhacday kadib oo isagu aqbalay Mayor Jacob Frey arintaasi cabasho ayuu ka gudbiyay waxaanu yiri codadka si wanaagsan looma tirin haddaba arintaasi waxa dhageysi ka yeeshay guddiga la yiraahdo the Constitution by Laws and Rules Committee ay arintaasi cabashada uu Mayor Jacob Frey soo gudbiyay kulan ka yeeshay waxaana la ogaaday in xisbiga dimuqraadiga ee magaalada Minneapolis shirkoodii 19 bishii hore dhacay in qaladaad fara badan ay ka dhaceen kaasi oo lagu taageeray Umar Fatih waxyaabaha la ogaaday waxa kamid ah in ay jiraan codad gaaraya ilaa 176 cod oo aan la tirinin isla markaana mid kamid ah xubnaha tartamayay oo codad ku filan oo wareegga labaad uga soo gudbi karo ninkaasi waxa la yiraahdaa Dwayne Davis in aan wareegga labaad loo gudbin oo wareeggii koobaad lagu reebay qaladaadka la helay ayay kamid ahayd codad in la waayay sidoo kalena qaabka elektrooniga oo codadka lagu tirinayay sidoo kale inay dhibaato ka jirtay waxa kale oo la ogaaday in waraaqda dadka soo galaya shirka ay saxiixayeen inaan meel ammaan ah la dhigin iyo sidoo kalena qaybta shanaad dhammaanba buuggii loogu talagalay in la lumiyay sidaas darteed ayaa hadda marka xisbiga dimuqraadiga waxa ay taageeradii ay siiyeen Senator Umar Fatih ay gabi ahaanba ay kala laabteen waxay yiraahdeen ma jirto marka shanta qof ay u tartamaysa maayarka magaalada Minneapolis doorashada bisha November dhacaysa in qofna ma taageereyno arintaasi marka waxa ay sababaysaa in xisbiga la ganaaxo marka waxyaabaha xisbiga lagu ganaaxay hadda waxa kamid ah in aysan jiri karin sanadkan qof u tartamaya maayarka ama duqa magaalada Minneapolis oo ay taageeri karaan isla markaana sidoo kalena waxa lagu ganaaxay 2 sano oo probation oo wax shir ah aysan qabsan karin sidoo kale waxa jirta in dhammaanba shanta xubnood oo tartamaya marka xisbiga uu taageero qof lacag ayuu siinaya hadda marka waxa la leeyahay voter rolliska waa ay u siman yihiin dhammaanba shanta musharax ee tartamaysa halka markii hore musharaxa la taageeray oo kaliya uu heli lahaa waxyaabaha ay bixinayaan xisbiga dimuqraadiga Mayor Jacob Frey arintaasi waa uu soo dhaweeyay wuxuu ku faraxsanahay inaan kamid ahay xisbi qaladaadkiisa saxaya arintaasina hadda waynu ka gudubnay sidoo kale Senator Umar Fatih isaguna waa uu dhaliilay go'aankii hore xisbiga dimuqraadiga ay u gaareen in ay hadda ka laabtaan marka taageeradii xisbiga dimuqraadigu ay siiyeen Senator Umar Fatih gabi ahaanba way kala laabteen kadib markii doorashadii lagu taageeray 19 bishii hore dhacday in gabi ahaanba qaladaad fara badan uu ka jiray sida lagu ogaaday cabasho markii uu gudbiyay Mayor Jacob Frey oo la tartamaya Senator Umar Fatih intaas hadii aan ku gudbo ugu dambeyntii gobolka California shalay baarlamaankiisa waxay meel mariyeen sharci u dhigma kii baarlamaanka gobolka Texas ay meel mariyeen arbacadii oo ah 5 degmo oo Republican laga soo doorto in hadda kadib laga soo doorto dimuqraadi marka Texas iyaga ayaa bilaabay inaguna waan wadayna ay yiraahdeen isla markiiba shalay markii baarlamaanku uu meel mariyay gudoomiyaha gobolka Gavin Newsom ayaa shir jaraa'id qabtay waxaana uu yiri arintan Trump ayaa bilaabay inaguna waan dhameystirayna isagoo halkaas ku saxiixay sharcigii ay meel mariyeen xubnaha baarlamaanka ee gobolka California waxaana shacabka California bisha November 4teeda ee soo socota oo 74 maalmood ay ka dhiman tahay la weydiin doonaa in ogolaashada ugu dambaysa ay bixiyaan in degmooyinkaasi dib loo calaamaynayo inay ogolaadaan waxaana ay arintaasi dhaqan gali doontaa doorashooyinka aqalka baarlamaanka ee 2026 dhamaadkiisa 2028 iyo 2030 California xubnaha ugu badan ee aqalka wakiilada ayaa laga soo doortaa 52 43 kamida waa dimuqraadi 9 Republican ayaa iskala hadda marka 5 hadii laga jiro waxay noqonayaan 48 oo dimuqraadiintu ay leeyihiin iyo 4 xubnood oo kaliya ay leeyihiin Republicanka marka sheekadu farfar ku taaga qaniye ayaa ka fujisa ay maraysa gobollo kale waa ay ku soo beeri karaan hadda waxa arkaya Trump oo dhahaya Missouri ayaa iyaguna sidaas sameynaya New York iyo Illinois oo dimuqraadiyana waa ay ku hanjabayaan marka sida muuqata hadda waxay noqonaysaa halkii markii horeba la istooran jiray hadda in ay u muuqato gobol waliba inuu leeyahay anigu dimuqraadi oo kaliya guud ayaa noqonaya xubno kale oo Republicana igama dhex muuqanayaan sidaas ay hawsh u socotaa wayna arki doonaa sidoo kale waxyaabaha ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sadaayo nabadgelyo